Fahad Yaasiin ayaa saaka aroortiisii Dhumaaleysiga uga soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho aadan cadde. Fahad Yaasiin ayaan la garanay sababta uu isagoo dhumanayo u soo galay dalka. Fahad ayaa ku xanibnaa waayadii u dambeysay dalka Djibouti isagoo markii dambe dib ugu laabtay dalka Turkiga si uu diyaarad uga soo raaco khaas ah. Diyaaradda sidee ayaa waxaa la sheegayaa inay tahay diyaarad khaas ah oo ayaan ahayn kuwa rakaabka ee caadiga ah ee Soomaaliya u imaan jiray. Fahad ayaa waayadii u dambeysay ku xanibnaa dibadaha isagoo soo geli waayay dalka dhibaatooyin uu kala kulmay kiiskii Ikraan Tahliil oo uu la musuqmaasuqay. Kiiska Ikraan Tahliil ayuu qoraal uu soo qoray Fahad Yaasiin isagoo jooga dalka Turkiga wuxuu ku sheegay inuu xilligu doono ka soo jawaabi karo. Wararkaas iyo warar kale ayaanu idin haynaa daawadayaal maraynu si toos ah marka u eegno. Fahad ayaa ciidamo aad u badan u tababaran haddana aad u fara badan ayaa saaka soo gaaray garoonka diyaaradaha ee aadan cadde iyagoo halkaa ka qaaday Fahad Yaasiin kadibna u gudbiyay meel aan la garanayn. Fahad ayaa diyaaradda siday waxaa lagu qiyaasay in lagu soo kiriyay ilaa $100,000. haddaba Fahad muxuu la soo dhuuntay muxuu sidaa balaynu eegno wararka dambe insha Allah.